الله الرحمن الرحيم ومحمد أمين عدو waxaan rabaa in aan bilaabo channel loogu hadli doono rajo iyo nolol. Nolosha waxay ka mid tahay astaamaha xigmadaha aan xadka lahayn ee Ilaah uu sameeyey, waana safar bilow iyo jidmar iyo dhammaad leh. Haddaba si loo helo nolol fudud oo ay ka buuxaan rajo, jacayl, nabadgelyo, horu socod, waxaan u baahannahay talooyin iyo tusmooyin. Haddaba studio-hada waxaa ila fadhiya Professor Cabdalla Cumar Mansuur oo runtii ka mid ah ragga hoggaanka u haya aqoonta Soomaalida waa xagga waxbarashada oo ilaa iyo heer caalami ah. Marka Professor soo dhawow. Professorka waxaan ku kulannay kulan ka dhacayay Stockholm. Haddaba Professor, su-aalooyin kooban ayaan rabaa in aan kula wadaago oo aadna noo sharaxdo oo aan rajeyno inaan ka heli doono talooyin iyo tusmooyin si nolosha aan u qurxino. Su-aasha koowaad rabaa inaan ku weydiiyo waxay tahay sidee ugu habboon ee ubadka loogu barbaarin karaa in uu jeclaado iskuulka iyo waxbarashada? Waxaynu ognahay dhaqankeena Soomaaliga markaad dib u milicsato waxaa ka buuxa canaan fara badan, habaar fara badan, qaylo, gaar ahaan xitaa markii baraarujinta ay tahay qayle iyo wax badana ku jira. Marka sida ugu habboon ee ubadka loogu barbaarin karo inuu jeclaado iskuulka iyo waxbarashada? waxbarashada sideedaba afka keliya ma ahay, nooc kastaba. waageenii hore waxaan wax ku bari jirnay sida adigu aa sheegtay, yacni ul iyo canaan, cay iyo habaar ayaa wax lagu bari jiray. marka waxay ahayd maaragtay waxaan dhihi karnaa tarbiya caskariya, sida askariga ninkii gafaba maaragtay in la ciqaabo. marka noocaasna waa nooc oo maaragtay wuxuu noqonayo waxbarashadii ma jeclaanayo wiilka maxaan ku yidhaahdaa ama cunuga maadada aad baraysid ama afka aad baraysid. marka waxaa la rabaa in la bedelo dhaqankaas oo loo bedelo wiilkii in la jeclaysiiyo. marka hore shayga adi aad baraysa inaad jeclaysiisa waa lagama maarmaan. hadduusa maadadaas aan jecleen ma baran karo, hadduu bartana markiiba waa iloobaya, ma danaynayo shayga. markii aad jeceshahay jiro maaragtay motivation waxa la yidhaahdo oo dhiirigelin ah, waa ku dadaalaya oo dhinaciisuu maaragtay u raadinaya. taasna waxaad ku samayn kartaa dabeeco wanaagsan adoo soo dhaweynayo, soo jiidanayo. afkii jeclaysiina afkii waa ugu sheekeynaysaa hodantinimadiisa, afkii waxaad ugu sheekeynaysaa inuu leeyahay qaanuun, uu leeyahay naxwo, uu leeyahay sida afafka kale oo ilmaha ay u haystaan afkan af oo reer baadiye waaye. wax oo sharci qaanuun naxwo uu leeyahayba ma jira oo kale iska aaminsanaanaya. bal waxaaba tusaysaa af Soomaaliga inuu leeyahay waxyaaba aan lahayn afkii oo shisheeye uu ka hadlayo. ma garatay? oo mithaal waxaad arkaysaa berri saa dambe saakuun afle ma arkaysa ama waa dhib. ma garatay? waxaad tusaysaa naxwaha Soomaaliga meelo yaryaraad tusaysaa. hal weer Soomaali ayaa 5 nooc aad u sheegi kartaa. way leedahay cali baa bariis cunay, cali bariis buu cunay, cali wuxuu cunay bariis, bariis waxaa cunay cali. yacni yeelaha ama la yeelaha subject ama object meesha rabtaad kala geyn kartaa. af sidaas laga dhigi kara aawe oona naxwihiisana uu saa u adag yahay, aanan ahayn iska maaragtay saa iska socda aan ahayn. marka macalinka ay maaragtay arrinta ay ku xiran tahay uu ku beero ardayga jacayl maadadaas si uu xiiseeyo. hadduusan awoodin arrintaas yacni waxa waaye wuxuu fashilay inuu gudbiyo oo inuu jeclaysiyo ardayga. waan gartay. marka waxaan filayaa sidoo kale waalidiinta ayaa kowka ah doorka ugu weyn ee dhabaha uu mari karo ubadka. marka waalidka door macnaha habkay mari karaan xagga koriimada iyo barbaarinta si xagga akhlaaqda iyo in cunuga uu hal abuur iyo maskax ahaan uu horumar u qaado. waalidka talooyin cinkee ah ayaa la siin karaa? horta iskoolkaba waxa ka horeeya waalidka ka horeeya. hooyada waa macalinka koowaad caalamka dhan. macalinka koowaad waxaa la yiraahdaa hooyo. afka xataa waxaa la yiraahdaa afka hooyo.
marka hooyada ayaa la rabaa in ay barto horta afka si fiican ay u barto oo afka shisheeye ay diido in maaragtay wax lagu baro ay kula hadasho guriga taas waa afkii kan kale dabeecadana waa in hooyada ay ahaataa hooyo wax taqaano cilmi taqaano laakiin qof aan waxba aqoonin tarbiyadiisa waa adag tahay siduu maaragtay u hagaajiya tii oo caadiga ah traditionalkii ayay ku wadaysaa marka ilmahana canaanta badan dilka badan iyo waxyaabahaas oo badan dhan in laga reebo malihii aniga sida European ilmaha lamaba taabanayo oo hadhow madaxa kaaga qaadanayaan ayna noqonin walaa aadan noqonin maxaan ku yiraahdaa mid maalin walba la dila ama la canaanto oo taas ku abuuraysa karaahiye in reerku uu karaahaysto oo nacbaado oo waxa la barayo uu nacbaado waa waxyaabaha Soomaalida hadda ku diray in ay raacin ama nidaam xumada lama barin laana nidaamkii waa xoog iyo khasab cabsi leh marka wax u baranaya haddii cabsi aan jirin banaankan oo kale qashinka meel kasto iskaga daadinaya waxa way nin canaananayo male markii waxa way horta markii hore waa inaa barta qashinka hadaa saameeyay dhibaatadan uu keenaya cudurka ka imaanaya yani ilmi waa inaa ka dhaadhicisa isagoo ma artay uu yahay qof ka dhaadhacsan waxaas inuu wanaag u yahay isagaba koow iyo bulshada u yahay laakiin amar leh wariya inta qashinka ku tuurin wariya inta hayeelin kaliya yani taas ma hagaajinaysa tarbiyada wati Soomaalida hadda meel walba ay joogaan ma artay nidaam ma jecla wiilada guriga ila degan waxaan yiri qashinka loo kala saaro kuwa cuntada iyo kuwa kala gooni aan u kala saara marka waxaan leeyahay ku kala daran meelahoodii waa tuurayaan hal meel ku radayaan markaas waxaan leeyahay yaa anigu waa ku daalay kala saaridda adin meelaad ku darays yaa anagu nidaam mana la barin nidaam ma lagu barin run waay laakiin haddana ma rabtid inaad baratid aan yiri kii ma rabtid marka aad meesha ku tuuraysid dadka waxay dhahaan dadka dhanaa maartay badankooda yeelan khamre cabayaan adi ma xaw cabi weyso ma fiican kada ma fiican ma garatay adi badanka ma waxa dhaan raac ma ahaanaysa yani iska kan diinteena nafaraysa ma aha cabsi aan u yeelay ani markaan kala saarayo qashinka kan cuntada ay kan kala aan kala saaray ma in ani gaal ilaalinayo hadaan yeelin waa lagu ganaxa ma يعني دينتيدا waxay nafaraysaa in aan u hogaansanaano meesha aan joogno nidaamka diinteena nafaraysa marka ilaahay ka cabsan nimankan صح انت hadda aad nala joogtay Sweden oo aad 10 ka bixinaysay sharaxaada waxaad soo qaaday inta badan waxa ku saleynaysay xagga luqadda ereyga waxa soo qaaday wada adigoona noogu soo tusaale ahaan waxaan wadanahay aqoon-yahano waxaan wadanahay maxaa la yiraahdaa dhaqaatiir siyaasiyiin waxaan wadanahay culimo waxaan wadanahay marka wadan ahaanshaasna ra'yigayga hadan ka hadlo waxa uu ku xiran yahay xagga aqoonta iyo dulqaad la'aan xitaa loo dhaqmayo wadan ahaanshahaas laftigeeda doodo fara badan oo dulqaad la'aan ay ka buuxdo ayaa ku jira marka waxaan rabaa in aad in yar noogu taabato waxyaabaha sababay dabeecadda noocaas oo kale in qofku wax inaan wada ahaano wax walba taas waxaan uga jawaabi karaa aqoonta sideedaba qofka 3 marxaladood ayuu marayaa aqoonta wajiga koowaad marka wax baranayso wajiga koowaad waxa ku gelinaya wax waruur la yiraahdo ismahadinaysa inaad wax taqaan oo dad kale aad dhaantid oo aad maartay aad ka roon tahay marka sida daraadeedii ayaa marka isla weynina marka haduu imaado qofku waa canaaq badan yahay qofka isla weyn sidiisa loo rabaa wax walba in loo yeelo markaas war sidaas ma aha waraanaan naqaanay sidaas ma aha wiilay ama markaas siyaasi uu noqonayaa wiilay wasiirada waxaan sameeyay meesha la qarxinayo ma la joojin inta waxa rabaan cilmi ay rabaan dadkana dad oo dawladda dad wada jaahiliin ma aha magaratay sidii isaga wax walba uu yaqaan waa aqoonta gaaban waay waxa la yiraahdaa weelka tanaga hadii biyaha uu gadoob yahay wax yar ku jira waa yeereera laakiin haduu buuxmo ma yeeray cilmiga gadoob ah kana marka ka dhigayo waxaan ma aragtay
qof maaragtay ismahadiyey oo maaragtay waxaan ka dhigaya. haddii laakiin cilmiga si fiican u barto wejiga labaad uu gaaraya oo ah qof mutawaadica, yacni qof degan isku kalsoon ayuu noqonaya oo tartiib oo waxaan waa aqaana waxaan ma aqaan ayuu leeyahay. laakiin marka koowaad wax walba aqaana uu leeyahay waxuu diidaya naqsigaasuu diidaya maaragtay. tan saddexaad cilmiga haddii sii basato wuxuu ku gaarsiinayaa in adiga jaahil un aad tahay. yani culimmadu waxay yidhaahdaan kulamaa maaragtay cilmi wax aan barto kulamaa inaan jaahil ah. maxay tahay? ilaahay aqoontiisii ayaa kuu muuqata markii tii ilaahay loo fiiriya inaad jaahil tahay. wamaa uutiitu lcilma ilaa qaliilan tii ay ahayd ayaa imaanaysa. marka heerkaas waa heerka saddexaad. waa adag tahay wax yaraa gaaraya. soomaalida hadda heerkii koowaada marayna hala sabro waa la gaaraa kan labaad. waan gartay nolosha sideedaba maadaama barnaamijkan ciwaan aan ugu dhigay oo youtube-kana la gelin doono rajo iyo nolosha ma dhamaystiranto sideedaba mar walba waa iska waxbaa dhiman. laakiin sidee wadiiqooyinka loo mari karo nolol leh rajo, jacayl, dulqaad, in la isku sabro, la isku dulqaato, wanaag ka buuxo, inkastoo kuwa kalena ay soo geli karaan. wadiiqada loo badin karo ee lagu gaari karo waa tahay aqoontu waa ku kontrooleysaa, cilmigu waa ku xifdinaya. maartay waxaa la yidhahdaa maalka adaa xifdinaya, cilmigana isagaa ku xifdinaya. marka cilmiga haddaa baratid, laakiin laba shay cilmi loo bartaa. cilmi aad baratid adoo aaminsan waa ku bedelaya. cilmi aad baratid shaqo aad ku heshay kuma bedelaya. marka cilmigaaba ayaa wax walba qofkii dabeecadiis inuu bedela. cilmigan leeyahay dabeecadeen sidii waaye macnaheedu maba aadan aaminsaneen. waxa waaye waa iska baratay shahaado qaadasho keliya mooye. waa tahay Professor Cabdulla Mansuur, aad baad umahadsantahay waqtiga qaaliga aadna siisay. waxaana rajaynayaa in talooyinkaaga iyo tusmooyinka wareysigana kooban aad inagu siisay in dad badan ay gaari doonaan saameyn uu la imaan doono.